بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالقة kusoo dhawaada saxan saxib Yuran Health Channel insha Allah maanta waxaan rabaa inaad la wadaago sida loo sameeyo muqumada ama oodkaca qofba siduu u yaqaano kulli aniga waxaan u aqaanaa oo muqumad baan u aqaanaa insha Allah muqumadu waxay ahayd cuntooyinkii cajiibka ahaa ee Soomaalida baalka dahabka kaga jiray gabdhaha lagu sooriyen jiray xeeriyaha loo xiri jiray anigu waliba wadankii hooyo waxaan ka soo tagay iyadoo ay sugufaan tahay oo la dhigi jiray gabadhii habeenkii dhowta la aroos intee loo xiray 20 xeero gabadha kalena hayd iyana ku faani jirtay 30 xeero yani aad cajiib ahayd aad maaragtay yani wax yani aan la tilmaami karin ay ahayd ay ku xidhneedna sida markaa ninka guursanaya gabadha uu lacag u haysto maasha Allah tabarakallah xeeriduna ahaan jirtay haddaba xeerada muqumada waxaan ka sameynayaa insha Allah hilibka lo'da ay maartay Australia carabtu waxay dukaamadooda markay laga gadanayo waxay dhahan waxa ku qoran Soomaali oodkac baa ku qoran waxaana jeclay magacaas kulay Soomaalida u gudbisay iyaga Soomaali oodkac ma yaqaanin waxaan ku darayaa insha Allah subagana waxaan uga dhigayaa badharka caadiga aan cusbada lahayn aldi baan ka soo gatay badharka waxaan ku shiilayaa isagana basal iyo toon iyo hayl wuxuu noqonayaa sixintii caadiga ahayd ee xoolaha buu noqonayaa timirta lu'lu iyadana maxawash baan ka sameynayaa iyadii olive oilka iyo filfil baan isla sameynayaa hadii la awoodi karaale noqdo marka muqumada laba way baa loo shiili karaa aniga laakiin hadda kaan u shiilayaa intuu tusayaa saliida caadiga ah ee khudaarta laga sameeyay baan soo qaatay saliida iyadoo qabow baan muqumada ku shubaya hadii kale aan iyadoo karkarayso ku shubo way isla karaysaa ka bacdi guriga gaaska iyo waxa qabsanaya dabka ama guriga ur iyo qaramuun noqonaya subagina dhinacaas uu igu shiilmaya isagoo oo maaragtay aan yani bas khudaartii aan intuu say basashii iyo toontii iyo haylkii aan ku daray markay kuwa intaas ii casaato ayaan maaragtay ka qaadaya isagana subaga miiraya subagu wuxuu markaa leeyahay biyo leeyahay biyahaas waxa leeyahay caanahaas markay ka dhamaadaan buu shiilmay dhinaca waa kana waxay ugu diyaarsan yadana filfil timirtii oo laftii ka bixiyay olive oilkii aan ku daray because olive oilka aan ku xashayaa timirtan marka waxa la oran jiray Soomaaliya maxawash baa la oran jiray xeeriyaha afka looga xiri jiray xeeriyaha marka afka looga xiro dabool bay ahaan jirtay muqumada lagu dhaxuni jiray aad iyo aad bay u macaaneed maasha Allah ilaahay farsamadeena ha inoo daayo timirta muqumada iyo xalwada iyo sambuuska waa saddexda ugu hawlka badan walow muqumada xoogaa iyada nafaqaba laga helo oo hilib loo-aad ay tahay waa saddexda ugu hawsha badan uguna waxtarka yar mar laakiin waa dhaqankeena marnaba kama tagi karno maasha Allah tabaarakallah marka waa kaas intaas waa hilibkii waxaan shiitay filfishi baan shiitay waan isku xashayaa si fiican baan u xashayaa waqti bay igu qaadan doontaa laana waa timirta way yara adag tahay adeegan waxaan ku doortay timirta jilicsan bashaq weeye macaankeedana saayid u sii badan muqumada markay sidan oo kale tahay waxay ku sheegaysaa inay diyaar tahay oo biyo ka dhamaadeen aad looma qalajiyo hadad aad u qalajisid oo aad yacni taqallayl ka dhigtid waxay sameynaysaa aad bay kaaga adkaanaysaa ilaa marba waad kululeynaysaa markaad kululeysidna way sii adkaanaysaa marka tartiib ayaad maartay iyadoo aan saayid u qalalin baad maaragtay baad ka qaadaysaa lafta iyo dhuuxa ka qalalin baad ka qaadaysaa subagii waa kaas uu ii shiilmaday basashi iyo maaragtay toontii iyo haylkiisaas ay u noqdeen waan miiranayaa insha Allah timirtii waan la xashay iyadana waa taas waan jarjarayaa hadhow waxaan malqacadahan u kor saaray nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri cuntada hala daboolo wax kale hadaad weydaan cadayga aad ku cadayanaysid yani cadayga ilaan islaamka waa nadiif cadayga korka laga saaro that's why aan malqacadaha korka uga saaraya dabool baan uga dhigayaa muqumada laba qaybood baan u sameeyay labada qayboodba hadaan iskuma dul shubayo tii hore markay miiranto baaquligan ku sii shubaya haddana ta kale cusub baan ku shubaya haddaan tii hore oo shaandhada ku jirta aan korka tii kale kaga shubo saliidii kulayd bay iga sii adkaynaysaa marka marba intaad shiishid markay saliidu kaaga dhacdo baaquliga ku shubo saliidaad muqumada ku shiidshay ha ku isticmaalin iska daadi ani hadda saliidaan muqumada ku shiilay gebi ahaanba badda cas baan ku darayaa waan daadinayaa tuubadan raacsiinayaa laana saliida markay dabka gasho dib looma isticmaalo waa waxyaalaha bay dhaheen dhakhaatiirtu marka dhakhaatiirta caafimaadka aad search garaysid waxyaalaha weeyaan baa la degdejiyo kansarka in laga qaado oo kansarka is abuuristiisa ilaahay baa hayee ka qayb qaata ilaahay naga hayee nakeenta islaamaba
alaabtii waatan asaasay isugu diyaarsan tahay muqumadan runtii waxay iga codsatay gabadh walaala oo odaygeedu yahay uusan Soomaali ahayn cadaan yahay ilaahay ha u xifdiyo xaajigeeda ayaa igu tii waxaan rabaa muqumadii Soomaaliya inaan odaygayga u sameeyo baro walaal macaan soo dhawow muqumadii waa taasaa u samee xaajigaaga bar waliba subag baan ku shiilay subaga ma wanaagsana xoogaa cholesterolka laakiin hadda Australia samarkii baa la galay way shiilmasaayo laba markaad yani la cuno oo qoraxdi baaba ka soo matajinaysa dadkii kulaylka banaanka uga soo tuuraysa ma sha Allah tabarakallah marka waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen alaabtii waa taasaan sugu dubariday waxaana ugu fiican ee lagu cuno waa canjeelada iyo shaaha ama in yarinta la soo rido timirta dhinac laga soo saaro koob shaah oo bigaysan lagu cabo kimista oo lagu cuni karaa khubska oo lagu cuni karaa roodhida laakiin waxa ugu fiican ee lagu cunaa dhaqankeeni waxa weeyaan waa canjeelada ma sha Allah tabarakallah asxaabtayda qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen haddaba subscribe gambaleelka taabataan insha Allah sad fiidiyoyada qayimkaad ula socotaan hadii Ilaahay raali ka noqdo si share gareeya asxaabta kale u sii gudbiya taan saabdaha fiidiyowga hadii Ilaahay raali ka noqdo idinkoo mahadsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa bulshadayda Soomaaliyeed inaanan u soo gudbinin wax dhaqanka akhlaaqda islaamka يعني أجينسكو أو كسهر شيء إن أنا أسوق بين الله سبحانه وتعالى بانك إلهي كبريا اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى كبريا أنت حنوسان الله ينوع عافيه أنت اللي متى الله ونحرسته أنت عافماتك قبت الله وسياديه أنت إنك جيريوتين إلهي سبحانه وتعالى ووالدك أباه يكشروا إلهي ونحرسته كداش ودنا إلهي سبحانه وتعالى ينمو في دمايه أولاد الله ينوع حفتيه ميل كستان شوق نبا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري أنت عن أولاد لهن أولاد صالحين إلهي سبحانه وتعالى إنه كوي رساقه إلهي وحن كبري أمد الصوماليات كوا ميل كستي شوغان دقن كذا يشرفت يدا إلاليا يشرفت الله ينقدقه اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته